kulanti wanaagsan daawadayaasheeda sharafta leh ee ku xiran facebookiga pageka cabdullaahi balwaan aad baan idiin salaamayaa soo dhawaada waxaan isdul taagi doonaa hadduu alla idmo macluumaadyo ugu dambeeya kuwooda ugu xiisaha badan ee quseeya xaaladda siyaasadda dalka marka subax wanaagsan waan idiin raacinayaa maadaama waqtiga geeska afrika ay tahay xilli aroor ah barnaamijkan waqtiga uu live uga baxayo facebookiga pageka cabdullaahi balwaan qodobada ugu muhiimsan ee aan barnaamijka kugu soo gudbi doono xilligan waxaa ka mid ah magaaladii burco ahayd mudaharaadyo waaweyn ayaa ka socda mudaharaadyadaasi waxa uu quseeyaa oo ay doonayaan in ay ku soo daayaan maxaabiis laascaanood ugu xiran horta iidoor waa jabay markaan ku leeyahay iidoor waa jabay wax kale ma aha mudaharaad in lagu soo daayo maxaabiis ayay xilligan maraysaa mudaharaad tabar kale iyo awood kale oo maanta ay leeyihiin iidoor ma jiro waxaan hal iyo laba ka dhihi doonaa tabar la'aanta beesha soo wajahday qayladhaanta habar jeclo iyo wararkii ugu dambeeyay maanta xilligan waqtigan aan kula hadlayo barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa maamulka SSC qaatumo guurihii ugu dambeeyana waan idin sidaayo maamulku dee min bilow ilaa iyo dhammaad maamulka SSC markastaba waxaa soo kordhayay guulaha isdaba joogga ah ee maamulkaasi siyaasad ahaan military ahaan iyo shacabkuba ay ka gaarayeen aayahooda waxaan idinla wadaagi doonaa xogtii ugu dambeysay maamulka barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa marxaladda siyaasadda muqdishona waanu isla eegi doonaa waxaan kaloo dul istaagayaa 18 May maalinta iidoor qorshihii ay ka lahaayeen ceergaabo iyo marxaladii siyaasadeed ee sanaag dadkii halkaa deganaa ee warsangeli ayagana waan iftiimi doonaa marxaladda iyo doorashada dalkana waanu isla eegi doonaa subax wanaagsan meel walbo aad joogtaan soo dhawaada arooriyo suban ku soo dhawaada facebooka pagekayga hadda kadib waxaan dib daaha uga rogi doonaa barnaamijyadii ka baxi jiray ee facebooka pagekan cabdullaahi balwaan marka waxaan idinka codsanayaa inaad sii share garaysaan ku soo dhawaada barnaamijka oo faahfaahsan waqti badan ma hayo waxaan soo koobi doonaa marxaladaha taagan iyo xaaladda ugu dambaysa dhinac walba ayaan ummadda Soomaaliyeed u soo koobi doonaa hadduu alla idmo waqti badan ma jiro muuqaalka sii share gareeya aan ku bilaabo magaaladii burco ahayd mudaharaadyo ayaa ka socday 48 saac ee ugu dambeeyay aba ugu badnaato 24 saac la soo dhaafay ayadoo dadka deegaanku ay ka cabanayaan maxaabiis muddo 2 sano ah ku xiran magaalada laascaanood kadib markii duulaan halkaa ka dhacay nolosha lagu qabtay wixii habar jeclo ahaa mudaharaadkoodii ilaa iyo shalay wad arkaysay waxaan rabaa markaynan ummadda Soomaaliyeed u iftiimiyo awoodii isaaq waxay ku soo biyo shubatay mudaharaad tabartii habar jeclo waxay ku soo biyo shubatay mudaharaad ma lagu soo badbaadin karaa generaalada ku xiran magaalada laascaanood qayladhaan iyo habarwacasho ma lagu soo badbaadin karaa jawaabtu waa maya horta aadan ugu faraxsanahay maanta inaan arko dad tabar yar oo shalay dulmi ku taagnaa maantana qayladhaaminaya horta aadan ugu faraxsanahay waana natiijooyinka aan sugayay mid ka mid ah waxaan rabaa marka fariintan muhiim bay u tahay beelweynta isaaq waana tusaale ku filan habar jeclo shalay dulmi baa lagu taagnaa dad masaakiina oo waxba idinka galabsan walaalihiin ah oo maamulkiina ka tirsan ayaad ku duusheen awoodii iyo tabarxumadiina waxay idin geysay inaad noqotaan qabiilkii ugu horreeyay duulaan qaada oo 500 oo maxaabiis laga qabto waa taariikh xumo tii ugu foosha xumayd 2023 ay ahayd wixii idinku dhacay oo ceeba maanta waa 2025 mudaharaad mooyaane tabar kale oo aad leedihiin haba yaraatee ma jiro marka meeshaas waxaa ka cad horta iidoor waa jabay iidoor wuxuu marayaa meeshii ugu liidatay maantana waxaan u jeednaa mudaharaad aan tabar kala jirin oo ay shacabkii burco maanta u qayla dhaaminayaan war hanaloo soo daayo maxaabiistii shalay ujeedka marka mudaharaadkan iyo wixii ka dambeeyey maadaama aan ka aamusnaa ilaa iyo shalay si kooban waxay ka war heleen habar jeclo in la sii day doono maxaabiis ku xiran Hargeysa oo qayb ka ahayd tiradii koobnayd maxaabiistii gobolka soo lagu qabtay maadaama maamulkii cirro uu rabo inuu sii daayo maxaabiistaas markii ay heleen qorshahaasi waxay yiraahdeen waxaan rabnaa maxaabiisteena
laascaanood ku xiran in lagu soo bedelo kadibna aynu helno generaaladii habar jeclo ka xirnaa uu ugu horeeyo Faysal Cabdi Bootaan laakiin waxa cadaatay in Faysal Cabdi Bootaan iyo generaalada kale aynan sahlanayn in si fudud lagu sii daayo sida uu horeyba u sheegay madaxweynihii SSC qaatumo qorshaha koowaad iyo qorshaha labaad ee sii deynta generaaladii dambiyada ka geystay gobolka Sool marnaba si sahlan ama hawl nabadeed oo la wado oo lagu sii deynayo generaaladaasi ma jiro marka tabar kale waa la waayay in la mudaharaado mooyaane horta taasi waa libin iyo guul waxaana shacabka SSC qaatumo leeyahay maanta meesha aad taagan tihiin guushan military midka siyaasadeed ciyaar kuma imaan maanta in habar jeclo ay mudaharaado waxay iftiiminaysaa libintii aad ka gaadheen maamulka Hargeysa taasi waa mahad Ilaahay waan ugu hambaleynayaa shacabka qaybta militariga siyaasadii SSC qaatumo waxaan rabaa markii inaad runta ogaataan maamulka SSC qaatumo waa maamul dhiig ku yimid waa maamul shacab ay dhiigooda u horeen ma aha maamul siyaasad ku yimid ma aha maamul ku yimid arrimo kale waa maamul ku yimid dhiigga shacabka maamulka SSC qaatumo darajooyinka iyo guulaha labada sano oo aan rabo inaad ila aragtaan si kooban madaxweyne Cabdiqaadir Firdhiye maamulka SSC wuxuu ka saaray maamulkii dhibaatada faraha badan deegaan ahaan iyo shacab ahaanba la kulmayay wuxuu gaarsiiyay maamul dowladda dhexe federaalka Soomaaliya ay aqoonsatay madaxweyne Firdhiye maamulkaasi wuxuu gaarsiiyay heer uu ka mid noqdo maamul goboleedyada shirka madasha wada tashiga la dhabarto ah maanta wuxuu marayaa maamulkii in hay-adihii dowladda iyo mashaariicdii dowladda dhexe ugu tala gashay maamul goboleedyada uu qaybtiisa qaadanayo wixii ka dambeeya bisha Juun 2025 waxaa bilaaban doona mashaariicdii loogu tala galay maamul goboleedyada oo ay SSC qaadan doonto taasna waa guul kale oo aad u ballaaran runtii anigu marnaba dowladda dhexe federaalka siyaasadeeda kuma ganacsanin laakiin libinta maamulka SSC qaatumo kaliya iftiiminaya anigu Xasan Sheekh iyo Xamse ma taageersanin siyaasadoodana ma taabacsanin laakiin libinta ay SSC gaadhay shaqo kuma laha marxaladda siyaasadda guud ee dalka siyaasadda waa la isku haysan karaa dagaal adag iyo dowladda dhexe waynu ku jirnay laakiin libinta guusha tilaabta ay SSC qaaday waa mid guul siyaasadeed iyo mid military ah lama qari karo taas ma loo hiiliyay oo maamulkaasi hiilama ka helay maamulka Xasan Sheekh iyo Xamse Xamse iyo Xasan Sheekh SSC waa u hiilayaan aqoonsiga darajada iyo waliba baqeeg maamulkan SSC qaatumo marxaladda uu hadda ku jira arag Cabdiqaadir Firdhiye guriga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho fayl dheer loogu jira siyaasiyiinta generaalada intaba isku sawirayaan taasi waxa meesha ummadda Soomaaliyeed uga muuqda sida loo jecel yahay maamulkaas marka jacaylkaasi kuma iman siyaasi dadaalkii wuxuu ku yimid dadaalkii shacabka iyo deegaanadii ay horumarka ka gaareen horta maamulka SSC waa dhaqaaqay maamulkaasna mid maanta soo noqosho iyo rajo laga sugayo aqoonsiga maamulkaasi inuu dib u soo noqdo ma jiro haba yaraatee marka imaamadan ku tuurayna SSC waa dhaqaaqday siyaasadda Xasan Sheekh iyo Xamse meel bay noo oolaysaa laakiin maamulka SSC qaatumo darajadii shalay loo dagaalamay 99% maanta waa u maraya haddii guul ay gaadaan dowladda dhexe iyo hadday guul dareysaan SSC qaatumo shaqo kuma laha SSC waa siday u dhaqaaqday maamulkaas darajadiisu waa u helay aqoonsigiisu waa haystaa dowladda imaan doonta xitaa mugdi kama geli karto waa sida dhabta ah waay maamulka marka insha Allah guul iyo gobonimo aan leeyahay reer SSC mar kale waxaan ku faraxsanahay in habar jecla maanta ay mudaharaadayso tabar kale aynan jirin waxaan ku faraxsanahay idoor in ay taayirro gubaan oo ay mudaharaadaan mooyaane awood kale inaysan jirin aadan u soo dhaweynayaan arrintii gobolka Sanaag horta reer Sanaag waa SSC qaatumo ergaabo waa deegaan kamida maamulka SSC qaatumo walaalaha warsangelina waa dad ku qanacsan maamulka SSC qaatumo si kasta hadalka u dhiga laakiin warsangeli waa SSC sida doontaan u fasira laakiin warsangeligu waa dad ku qanacsan maamulka magaalada Laascaanood xarunta u ah warsangeli marka ogolaashadiisa maanta ma bedeli karaan siyaasad kasta oo laga dhodhoobo qurbaha ama mid yar oo iska miskiin oo baahano
darajo ka raadinaya maanta maamulka jabay ee jabhadda SNM warsangeli waxba kama bedeli karaan marka waxaan leeyahay warsangeli wuxuu ku qanacsan yahay maamulka SSC tilaabooyinkii ugu dambeeyay oo ay maamulkaasi SSC ay qaadaanna waa mid ay kaga hortagayaan wax kasta oo jabhadda SNM maanta kor loogu qaadayo ama wax loogu yeero barnaamijka nabadeynta taasna waxaan leeyahay waa guliyo gobonimo barnaamijkan ceergaabo wuxuu ku dambay doonaa gacanta maamulka SSC warsangeli dhulbahantu wada socda siyaasadii dalka iyo marxaladihii ugu dambeeyana haddii aan soo koobo xisbigii muqdisho looga dhawaaqay madaxweyne xasan sheekh uu hogaaminayay ka koobnaa 4 madaxweyne maamul goboleed sida madaxweynaha SSC qaatumo madaxweynaha hirshabelle madaxweynaha galmudug madaxweynaha koonfur galbeed gudoomiyaha gobolka banaadir iyo waliba ra'iisul wasaaraha xisbigaasi iyo xaaladiisa xisbiga marqaati waxaan ka nahay nidaamka dalku uu hadda ku jiro iyo xaaladda dalku uu marayo hadafkiisa isagana waxaan leeyahay natiijadiisa muddo dheer lama sugi doono isbuuc ayay qaadanaysaa markay ugu badato marka xisbigaasi meesha ku dambeeyana waan arkaynaa dhaqdhaqaaqa arrimaha siyaasadda dalkana midi waa lama taabtaan ummadda Soomaaliyeedna waa marqaatiyeynaya waxa weeye wax ummadda Soomaaliyeed ay raali ka tahay ayaa Soomaaliya ka dhici doona Soomaaliyana doorashada ay higsanayso waxay noqon doontaa doorasho la wada ogol yahay qof shakhsiya doorasho uu wato Soomaaliya kama hirgeli doonto koox gaara Soomaaliya doorashada ay wataan kama hirgelayso waana mabda muuqda oo aan shalayna hore uga dhicin Soomaaliya maantana kama dhacayo marka waxaan anigu taabacsanahay aniga afkaarteeda ma qariyo fikirkayga lama gambado waxaan anigu taabacsanahay oo aan ummadda Soomaaliyeedna ku marqaatiyeynaya saaka barnaamijkayga in darajada Soomaalinimada iyo wada socodka dawladnimada sinaan lagu gaari karo madaxweyne xasan sheekh shalay madaxweyne farmaajo isaga ka soo horjeeday muxuu ku diidanaa aan wada tashanu diidanaa farmaajo laakiin maanta madaxweynihii shalay aan wada tashanu u dagaalamayay inuu maanta yiraahdo cidna la tashan maayo meel ay la gaarayso malaha marka taasna waan hubaa waxay ku dambay doonto waa shir wada hadal oo dhameystiran waana mid lagu wada idil yahay oo ummadda Soomaaliyeedna ay u wada dhan tahay Soomaaliyana ay hiigsan doonto taasi wax badan hadda ka oran maayo dalku isaga ay isbedeli doona maalmaha nagu soo aadan wax badan oo hadda waqti ahoon gelinaya ma jiro hal arrin wada iga qoraysaan cid laga maarmo ma jiro Puntland Jubaland SSC qaatumo galmudug hirshabelle koonfur galbeed waa wada jir waxa kale oo xusid mudan maalmaha nagu soo aadan hadduu Allah idmo xoogii siyaasiyiinta mucaaradka muqdisho tigi doonaan ragga muqdisho tigi doonana isbedelo waaweyn baad caasimada ka arki doontaan hadduu alla idmo muqdisho waxay higsan doontaa doorasho loo wada dhan yahay mana dhacayso doorasho hal dhinaca waana hubaaltaas in ummadda Soomaaliyeed ay marqaati ka noqon doonaan isdiiwaangelintan hadda guddiga aan loo wada dhammayn ay wadaana wuxuu ku soo biyo shuban doonaa natiijada aan ognahay maanta aan u wada jeedno ah guuldarro wax oo soo kordhaya oo muuqda haba yaraatee maanta ma jiro dalku dimuqraadiyad iyo horusocda u baahan yahay hebelaa laga maarmaa iyo loo joojin maayo meelay gaaraysa haba yaraatee malaha haddii kibir faa'iido leeyahay iyo door ayaan ka arki lahay isaaqa maanta kibirkan meesha uu dhigay marqaatiyaan ka nahay marka kibir meel ma gaaro hebelaan ka maarmaa iyo xoogaan isticmaalaa iyo loo joojin maayo iyo waa ku tumanaynaa wallaahi bilaahi tallah sheekada habar jecla maanta haysata iyo guud ahaan baysaan meeshaasay ku biyo shubanaysaa cid xoog lagu maquunin kara ma jiro cid laga maarmana ma laha tusaale Puntland waa laga maarmaa waxaa la lahaa 3 sano la soo dhaafay hal shir oo faa'iido leh oo Puntland ay ka maqan tahay ma aynan dhicin hore waxaana loo yiri Siciidan iyo Axmed Madow waa laga maarmaa hore socod ma jiro waxa la yiri waa laga maarmaa Maxamed Xuseen Roble iyo Xasan Cali Khayre iyo Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hore socod ma laha bal si fiican dib u dhageyso wixii hore u dhacay madaxweyne xasan sheekh 4 jeer masaajid ku yaala madaxtooyada villa Soomaaliya wuxuu ka sheegay cid aan u joojinayo malaha intaan marayna maanta halkaynu taaganahay waa jugjug meeshaada joogo meel natiijo leh oo ay dawladdiisu gaartay malaha haddii laga maarmo marka Soomaalida kale oo cid kale aan loo baahnayn horumarka aynu gaari lahayn waanu ognahay laakiin wax horumar hadda la taaban karo oo aynu gaarnay malaha dagaal al-shabaab aan galnay waa ku soo jabnay ma beenan isku sheegaynaa 3 sano dagaalkii shabaab oo socday balcad uu maraya hadda waa 3 sano 30 kilomitir ayaa u xuraysan 3 sano bal ilaahan idinku dhaariyay haddii Soomaalida kale laga maarmo dagaalkii aadayabaal
oo beelihii abgaal ee deganaa gobolka shabeellada dhexe ee argagixisada intee buu ku dambeeya shariif sheekh axmed waa laga maarmaa aaday baalna waa laga soo cararay shariif sheekh axmed waa laga maarmaa masaajid cali guduudna waa laga soo cararay bal ilaahan idinku dhaariya fiiriye soomaaliya haddii qof laga maarmo guuldarradu maxay tahay waxaanu dhahnay u joojin mayno axmed madoobe dagaalaan ku qaadnay maxay ku soo biyo shubatay in ciidankii qaranka ay qaxooti ahaan kenya isku dhiibaan war qof laga maarmo ma laha war kibirku meel dheer ma gaaro war ciidankii qaranka ee lagula duulay maamulka jubbaland maxaynu ka natiijo ahaan aynu ka helnay bal arag intaynu ka baxnay rees cambonian ku duulnay maxaynu ka faa'iidnay in kenya la isku dhiibo waxaanu dhahnay puntland u joojin mayno maxaynu ka faa'iidnay 3 sano oo argagixisada aan balcad dhaafin laanahay war qof laga maarmo ma laha war cid laga maarmo ma jirto